السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku eegi doono taariikhda musharax Khaliif Ciise Mudan iyo sidoo kale halganadii uu ka soo qaatay wadanka Soomaaliya iyo sidoo kale taariikhda hogaamineed ee musharax Khaliif Ciise Mudan. Dad badan ayaa mararka qaar is weydiiyay waa kuma Khaliif Ciise Mudan. Khaliif Ciise Mudan waxa uu ku dhashay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland sanadku markuu ahaa 1958. waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe ku qaatay isla magaalada Boosaaso 1968 sidoo kale waxa uu dugsiga sare kaga baxay 1970 Jamaal Cabdi Naasir ee magaalada Muqdisho xarunta gobolka Banaadir. sanadkii 1974 ayaa waxa uu dhameystay jaamacad ku taala dalka Ruushka waxaana uu noqday بايلوت waxaana uu shahada masarka ah maamulka iyo maareynta uu ka qaatay jaamacad ku taala wadanka Mareykanka dabayaaqadii 70-yaadkii. Mudane Khaliif Ciise Mudan waxa uu ahaa taliyihii ugu dambeeyay ee ciidamada cirka dawladda dhexe ee Soomaaliya uu hogaaminayay Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre. siyaasigan ayaa waxa uu qayb ka yahay ganacsatada reer Puntland waxaana xarumo ganacsi oo waaweyn ku leeyahay magaalooyinka Boosaaso iyo Djibouti. General Khaliif Ciise Mudan waa hogaamiye leh khibrad waana siyaasi magac iyo miisaan ku leh bulshada Soomaaliyeed iyo caalamka intiisa kale. waxaana lagu xasuustaa intii uu wasiirka amniga ka ahaa Puntland inuu dadaal dheer ku bixiyay sidii Puntland u heli lahayd amni waara xilligaas Puntland ay la dagaalamaysay kooxaha xagjiriinta ee ka dagaalama buuraleyda Galgala iyo Calmadow. waxa leeyahay dhanka amniga musharax Khaliif Ciise Mudan oo hogaamiye la karti siyaasadeed hufnaan iyo bulshada la dhaqan. Khaliif Ciise Mudan waxa uu doonayaa in uu Puntland u dhaqaajiyo jihada saxan Puntland wanaagsan dadkeeduna ay heli karaan adeegyo kala duwan oo dhanka nolosha ah isla markaasina waxa qorshihiisa ka mid ah la dagaalanka musuqmaasuqa dib u dhigista kaabayaasha dhaqaalaha kobcinta dakhliga dawladda uga soo xaroodo furdooyinka ama dekedaha iyo cashuurta gudaha. waxa sidoo kale doonaya Khaliif Ciise Mudan in uu wax weyn ka bedelo amniga Puntland isla markaasina uu sameeyo amni la isku halayn karo. أحسنوا خليفو بايلوتي كاركو أديتوكي دكاكيو باريكي تالينكو أحسنوا خليفو بايلوتي كاركي أديتوكي دكاكيو باريكي تالينكو أشيد الكيمي رشد أي كلاتو أشيد الكيمي رشد أي كلاتو بيرهدي أمانكيو نبدوح دكينو عالم كابوغات شي دادن كاغا بدانين انتلان كوهانتاي boqorka kula jiro haka dhawra baalaha wadankana badbaajiyo kibixin laha noqo boqorka kula jiro haka dhawra baalaha wadankana badbaajiyo kibixin laha noqo
siyaasi bari samaadow baaqnabad horseede howladaha ka baydo baxsanow khaliifow siyaasi bari samaadow baaqnabad horseede Somali badankeed kanu beegsanayne Belbel aqoone isu soo bahiyo Somali badankeed kanu beegsanayne Belbel aqoone isu soo bahiyo Calamka bogaashay dadalkaaga badaneed intilaan ku hanatay boqorka kula jiro haka dhowra baan laha wadankana badbaajiyo kibixi lahaa noqo boqorka kula jiro haka dhowra baan laha wadankana badbaajiyo